بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed xuseen oo ku magac dheer janaale waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed maanta la wadaago mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysata dadka Soomaaliyeed run ahaantii dadka Soomaaliyeed waxa haysata dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaasna waxa ka mid ah dhibaatada deganaansho la'aanta khilaafaadka siyaasadeed is haysashada qabyaaladda laakiin waxa jira dhibaato kale oo kuwaas aan ka yarayn oo dadka Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn dhibaatadaas waxa ka mid ah qaabka deegaameynta ee dadka Soomaalida ahi ay u dagaan magaalooyinka tuulooyinka iyo qaabka ay guryaha u dhistaan taas oo aniga in badan aan u fiirsanayay aanan ogaaday in uu jiro khalad weyn oo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed bal inay dib u eegaan khaladaadkaas marka taariikh ahaan waxay dib ugu noqonayaan xilligii dadka Soomaalida ay ahaayeen reer guuraaga sababtoo ah waxaan ognahay in dadka Soomaaliyeed badankoodu ay yihiin dad reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ah dabadeedna dadkaas reer guuraaga ah waxay samaystaan meelo ceelal ah oo tuulooyin ah oo ay ku kulmaan haddaba meelahaas ay ku kulmayaan badanaa ma laha wax qorshe ah iyo wax nidaam ah oo dadkaasi tuulada ay degayaan kala nidaaminaya awooyeen nin baa maqaaxi samaysanaya dad badan buu helayaa nin kala imanaya maqaaxi kale iyo ka garab samaysanaya ku kala imanaya meel cooshadu ka garab samaysanaya sidaas ay arrintu ku soconaysaa deegaankii tuulu noqonaya tuuladiina tuulo weyn bay noqonaysaa tuuladiina marka dambe magaalay noqonaysaa sidaas bayna magaalooyinka Soomaalida badankoodu ku samaysan waayo waxaa jira magaalooyin maanta waaweyn oo berigii hore ahaan jiray ceel ama tuulo yar oo dhowr ay degan tahay marka meesha maxaa ka maqan waxaa meesha ka maqan waxa loo yaqaano qorshe hage in loo sameeyo magaalooyinka xilligii Soomaaliya uu ka tirinayay isticmaalka magaalooyinkii samaysmay meelo fara badan faras magaalaha si fiican baa loo sameeyay waana qurux badan yihiin wayna bilic wanaagsan yihiin laakiin waxaa jira magaalooyin fara badan oo samaysmay xilligii isticmaalka kadib xilligii ay dawladda dhexe jirtay Soomaaliya dhul fara badan ayaa la qorsheeyay oo la qurxiyay oo la nidaamiyay laakiin hadda 30 sano ku dhow baa Soomaaliya ay leedahay dawlad dhexe oo adag oo wax walba nidaamisa taasina waxay raad weyn ku reebtay magaalooyin fara badan oo dadka Soomaaliyeed ay degaan markaad u fiirsato qaabka magaalooyinka Soomaalida ay u korayaan ama u fidayaan waxaad arkaysaa dhammaantood inay yihiin qaab isku raran ah magaalooyinka aadka u waaweyn ee samaysmay intii ay tuntay dawladdii dhexe waxaa ka mid ah matalan magaalada Boosaaso oo kale oo maanta ah magaalada saddexaad ee ugu dadka badan waxaa ka dad badan oo kali ah Muqdisho waxaana ku xigta Hargeysa magaalada saddexaad ee ugu dadka badan waa magaalada Boosaaso magaaladaas boqolkiiba 80 waxa ay kortay intii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay duntay kadib markii dawladdii dhexe ay duntay kadibna lama helin nidaam adag oo magaalooyinka u sameeya nidaamka qorshe hagaha oo markaas magaalooyinka dib u dhisa markaas waxa dhacaysay dadku in ay si jaantaar rogan ah qofba meeshuu rabo uu u dego dadku iyagoo markaas wata dhaqankii hore ee ahaa qaabka tuulanimada markaas dadku kama fikirayaan in ay yeeshaan wadooyin u dhaxeeya xaafadaha wadooyin u dhaxeeya guryaha markaas qofka kale ayuu guriga dhinaca ugu qabanaya qofkii kalena hadana dhinaca ayuu ugu qabanayaa gurigii kale halkaas waxaad arkaysaa magaalo weyn oo haba yaraata ee meel wada ah oo laga soo galo aan lahayn taasina marka waxay dhibaato weyn u keenaysaa bilicda magaalada iyo magaaladaas sidii mustaqbalka loogu noolaan lahaa dad badan baa waxay ku fikirayaan in marka nidaam la helo magaalooyinka loo sameeyo qorshe hage laakiin qorshe hagaha magaalo dhisan marka loo sameynayo wuxuu keenaa khasaaro weyn dhibaato weyn uu keenaa sababtoo ah dad baad guryahoodii ka duduminaysaa dadkaasi waxa laga yaabaa inaanay awood u lahayn in dib dambe ay guri u dhistaan sababtoo ah dadku wixii ay hayeen guriyay ku dhisteen haddii gurigii laga dumiyo markaas qofkaasi awood uma laha inuu guri dambe dhisto sababtoo ah in guri aad dhisato waa qaali marka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaalida ahi
in haddaba ay isnidaamiyaan oo markaasi magaalooyinka ay degayaan ay ka fikiraan meelihii wadooyinka la marin lahaa oo markaas qofka dhul iibsanaya uu yiraahdo okay dhulkan aan iibsadee xagee wada iigu dhow markaasi dadka dhulka iibinaya waxay markaasi samayn lahaayeen nidaam wadooyin ay ugu samaynayaan dhulka waxaan ogsoonahay in dhulka Soomaalida uu aad iyo aad u weyn yahay waxaa laga yaabaa maanta oo dhan inaad socoto oo dad badan aad ku arkin wadada laakiin markaad magaalada timaado magaalo isku raran ah oo dadku ay isugu soo urureen meel cidhiidhi ah oo suuqyadu ay cidhiidhi yihiin oo wado aan lahayn oo beer aan lahayn oo jardiinooyin aan lahayn oo fagaarayaal meelaha dadku ay isugu yimaadaan xilliyada ciidaha aan lahayn oo aan lahayn goobihii danta guud meelihii iskuulka laga dhisi lahaa meelihii isbitaalada laga dhisi lahaa meelihii adeega dadweynaha laga dhisi lahaa meelihii dadku ay ku nafisi lahaayeen meelihii wadooyin laga samayn lahaa meelihii la dhigi lahaa tuubooyinka biyaha meelihii la dhigi lahaa tuubooyinka gaaska meelihii la dhigi lahaa tuubooyinka ulaacada qaada meelihii la dhigi lahaa tuubooyinka saxarada iyo kaayada qaada meelihii la dhigi lahaa xarkaha korontada meelihii ay baabuurta mari lahaayeen meelihii haddiiba tareenno mustaqbalka la sameeyo tareenadu meeshay mari lahaayeen meelihii laga samayn lahaa garoomada ciyaaraha hadda in la sii qorsheeyo meelihii mashaariicda danta guud laga dhisi lahaa sida garoomada ciyaaraha sida isbitaalada iyo iskuulada magaalo walba waa inay yeelataa goobo cagaaran kaymo lagu nasto muhiim ma aha in la dhisto wadooyin laami ah iyo guryo daara ah oo qurux badan laakiin waxaa muhiima bal guriga aad dhisatid inaad horta dhul waasaca haysatid waxaa muhiima wadada hadhow baa la dhisi karayaa marka lacag loo helo laakiin waxaa muhiima in la helo meeshii wadada la marin lahaa in wadadaas hadda laga dhigo bacaad ha iska ahaato ama jidcadda ha iska ahaato laamiga markii dhaqaale loo helo baa la dhisayaa laakiin hadda in la sii qorsheeyo meeshii wadadu mari lahayd ayaa loo baahan yahay maalinta jimcada ah oo kale waxaa loo baahan yahay beero magaalada hareeraheeda ah ama dhul kaymo ah oo dadku inta ay baxaan ay ku soo nastaan oo ku soo nafisaan sidoo kalena waxaa loo baahan yahay jardiinooyin ama beero ama kaymo magaalada dhexdeeda ah oo dadku ay ku nastaan oo ay isugu tagaan oo ku sheekaystaan waxaa loo baahan yahay xaafad walba in laga sameeyo garoon yar oo ciyaalku ama dhalinyaradu ay kubadda ku soo ciyaaraan xaafad walibana waa inay yeelataa garoon weyn oo kaa ka sii weyn sida hadda lagu jiro walaa si fiican ma aha marka dhulka Soomaalida waa dhul weyn ilaahay dhulka Soomaalida kuma yaraynin maxaad idinku marka dhulku isugu yaraynaysaa maxaa cidhiidhigan idan baday maxaa istulfuulkan idan baday maxaa suuqyadan cidhiidhiga ah ee sanad walba gubanaya idan baday waa dhulku wuu weyn yahay magaalo walba ma la kala durkiyo ma magaalada la waasiciyo guryaha ay dadku degan yihiin badanaa waxaa caado waa in la yiraahdo 20 bar 20 oo ah 20 mitir iyo 20 mitir xataa guryaha way yar yihiin qaabka dhulka Soomaalidu ay iibsadaan waa yar yihiin waxaa la rabaa in laga dhigo 20 mitir lagu dhuftay 30 mitir taas oo ka weyn dhulalka caadiga ah ee Soomaalidu ay degaan oo ah 20 bar 20 marka 20 bar 20 hal la joojiyo waa in lagu bedelaa 20 mitir lagu dhuftay 30 mitir ama 30 mitir oo lagu dhuftay 30 mitir kaasa isna ka sii weyn hadhow reerku wuxuu helayaa dhul weyn oo waasaca oo qaybna ay degaan qaybna barrier ka samaystaan ama ay baabuurta dhigtaan ama ay caruurta ugu ciyaarto ama ay ku nastaan ama dharka ay ku wadaan bay helayaan laakiin qaabka 20 bar 20 baa xataa aad u yar marka waxaa loo baahan yahay xataa qaabka dhulka Soomaalidu ay u degaan in la waasiciyo oo sidii hore wax weyn laga bedelo marka waad yaabaysaa marka qaarkood matalan marka qofka uu Yurub ka tago oo markaas qofku uu tago deegaanada Soomaalidu ay degaan wallahi waan hubaa qofkaasi waxaa ku dhacaya calool xanuun sababtoo ah qofku markuu saa u yimaado ayaa waxa uu imanayaa dhul wada cidhiidhiya wado wada cidhiidhiya wadooyin boodle meel aan dadkii iyo baabuurtii iyo baaskiilkii iyo xoolihii meel ay kala maraan aan lahayn hal wado cidhiidhi ah ayaa dadkii iyo xoolihii iyo ari carbeedkii iyo lo'dii iyo baabuurtii yaa la wada maraya markaasaa meelaha qaarkood waxaad yaabaysaa qaylada ka yeedhaysa wadada dadka isku buuqaya waad yaabaysaa marka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaalida ah
inay dhaqankooda wax ka bedelaan qaabka magaalooyinka dadku ay u degayaan inay wax ka bedelaan dhammaan maamulada ka jira dhammaan deegaanada Soomaalida waxaa la rabaa arrinta inay ku baraarugaan inay dhahaan war ka kacay war sida aynu ku socono waa si qaldan war dhulka Ilaahay naguma yaraynin war dhul weyn baan haysanaa war waa maxay silacan war waa maxay rafaadkan war waa maxay sidan marka dadku inay wax ka bedelaan laakiin waxaad arkaysaa markaad u timaado oo dadka aad waraysato tiraahdo maxaa dhibaato idin haysata waxyaabo kale dadku ka hadlayaan laakiin mar ku dhama arkaysid qof ku dhahaya niyo magaaladii baan si qaab daran u deganaayo magaaladii baa nagu noqotay isku raran oo wadada male oo dad yar baad yaad maartay yaa ku sheegay laakiin waa dhibaatooyinka Soomaalida haysta kuwa ugu waaweyn ayay dhibaatadani kamid tahay marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay arrintaas ku baraarugaan inay fadhiga ka kacaan inay magaalooyinka iska qurxiyaan inay magaalooyinka iska nadiifiyaan in ay xaafadaha iska nadiifiyaan saasa loo baahan yahay laakiin haddii sidan la sii ahaado wallahi dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka imanaya ma jeclaysan doonaan in ay Soomaaliya yimaadaan oo soo booqdaan oo xilliyada fasaxa ku qaataan oo lacagaha ay wataan dadka ku farraqaan oo dadkuna lacag ay ka dhargaan sidaas ma dhacayso waxaa laga yaabaa dadku inay meel kale iska aadaan oo ka qurux badan magaalooyinka Soomaalida marka bal u fiirsa magaalooyinka Soomaalida magaalo walba magaalada kale ka sii daran bal u fiirsa ciriiriga iyo rafaadka iyo wada la'aanta ka jirta magaalada Kismaayo ka tag Baydhabo tag ka tag Jowhar tag Beledweyne tag Boosaaso tag dhammaan magaalooyinka Soomaalida ee joogto dhan waa noocaas oo meelan marka waxaa loo baahan yahay magaalooyinka in wax laga qabto inta ay goor tahay bal wixii hore loo dagay la garay laakiin maanta wali fursad baa la haystaa wali magaalooyinka aad u fudayaan marka waxaa loo baahan yahay in hadda wax laga qabto magaalooyinka hawshaas iyo u taallaa marka hawshaas waxay u taallaa gudoomiyayaasha degmooyinka duqyaasha magaalada maamulka magaalada golaha deegaanka magaalooyinka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe intaba u taalo waa hawl muhiim ah oo loo baahan yahay inta ay goor tahay in wax laga qabto marka hawshaas waan sii wadi doonaa hadallo kale baan uga soo hadli doonaa haddii alla yiraahdo laakiin maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh